السلام عليكم soo dhawaad saaxiib yaa kuna soo dhawaad kanaalkeena Amir Tech fadada ku cusubta kanaalka waxaan ka codsanaa subscribe saarto si aan u gaaro 30,000 oo subscribers aad u maasantay saaxiib qaali maanta muuqaalkeena wuxuu ku habsan yahay sidee Facebook page lacag looga sameeyaa ida sida Facebook page يعني loo sameysto haddaba saaxiibayaal muuqaalkan waxa isweydiinaysaa maxaa labada mawduuc ugu soo sameeyay dadku badanaa Soomaalidu labada mawduuc ay u baahan yihiin waa labadaas oo ah page-ka sidii u sameysan lahaayeen iyo qaabkii lacagta uga sameyn lahaayeen haddaba waxaan ugu horreysiinaynaa sida Facebook page lacag looga sameeyo sababtan ugu horreysiinay ayaa waxay tahay Soomaalidu maadaama ay jeceshahay waxaan inta ay faraha la gelin inay ogaato qaabka lacagta looga sameeyo sidaasi ayaan rabaa inaan aan ugu wadaago okay saaxiibayaal Facebook page-ka waxa lacag horta laga sameeyaa saddex qaab haddii aan la wadaago qaabka koowaad waxa weeye in aad video aad Facebook page-kaada aad soo dhigtay aad muuqaalka aad saarato xayeysiis ay ku saaraan Facebook page-ka sidaasna aad lacag uga sameyso Facebook page-ka isaga shuruud uu leeyahay waxa weeye in muuqaalkaada hadduu 3 daqiiqo ka yaraado aadan wax lacag ah aadan ka sameynin haddaba saaxiibayaal tan labaadna waxa weeye starring waa wax la yiraahdo TikTok live-ka waa taqaanayaan filaya oo la isku diro waa gift camal weeye marka live aad soo gelisaa dadka markaasi gift ay ku soo diraya qofka gift ku soo dirayana waa in uu kolka hore giftiga soo iibsadaa uu ka soo iibsadaa bankigiisa haddaba tan saddexaad u dambaysa ayaa waxay tahay Facebook lacag looga sameynayo live ads live-kaasi waxa weeye waxa soo gelisaa live-kaasi muuqaalka dadka ku daawanayo waxaad ka sameynaysaa lacag haddaba waxa weeye live-kaasi waa 10,000 oo followers iyo 600 oo daqiiqo iyo 60,000 oo ayadana views minute ah ayadana oo daqiiqo ah oo aad ku heshay live-ka 600,000 waxa weeye fiidiyoda aad soo gelaysa ayaad ku helaysaa 60,000 ee kalena waxaad ku helaysaa live-ka markaad soo gasho ayay ku tirinayaan inta lagu daawaday haddii aad ku jirto live-ka ka soo qaado kale adiga hal saac meelahaas oo ay ku daawanayso markaasi 60,000 ama 50,000 ama adii maalinta live soo gasho kale shuruudaasi waa buuxin kartaa mid kale wuxuu ku leeyahay waa in maaragtay Facebook page-kaada uu sodonkii cisho la soo dhaafay la soo post garay 5 video hal kale ayuu leeyahay waa inaad maaragtay saddexdii bilood soo dhaafay in aad 3 maalin aad live ka soo gasho qaybtaasi live-ka weeye haddaba qaybta ugu muhiimsan ee Facebook lacag uga sameyn karto waxa weeye in stream ads qaybtan la yiraahdo in stream ads-ka qaybtani waa 5,000 oo followers iyo 60,000 oo daqiiqo iyo 5 video waa 3 bes ah 5,000 oo followers in haysto iyo 60,000 oo daqiiqo ama 60,000 oo views hal muuqaal aad soo dhigto halka muuqaalna uu 1 daqiiqo uu yahay lana daawanayo 60,000 ay daawato 60,000 qof ay daawatina mid 1 daqiiqo wada dhamaysteen videoga sidaas ayaa shuruudan ku bixisay shuruuda kalena waxa weeye in page-kaada aad 30 cisho aad soo dhigto 5 video haddaba saaxiibayaal qaabkaasi ayaa maaragtay Facebook page-ka lacag looga sameeyaa haddaba haddii aan qaabkaasi aan uga gudbo dhan kale oo maaragtay iyadana sideen ku sameysan karaa Facebook page waxa sameynaysaa qofka ugu horeyso kani waa page-keyga waan codsan waan jeclaysan lahaa inaad soo boqoto waad follow soo dhahdo okay haddii aad maaragtay aad imaato ciwaankaada caadi ah mid waa ciwaanka caadi ah dabban waxaan arkay lahaa aniga wax kan kala soo xirina waxaad igala soo xiriir kartaa ciwaankeyga si fiican u fiiri Amir Tech ayaa ku qoran fariin hadda isoo qorto aan ku soo jawaabaya okay markuu horeyso waxa loo baahan yahay Facebook page inaad ciwaan leedahay ciwaankana mal dhihi hadda ma dhihi karo in dad ay jiraan aan garaneyn ciwaan sida loo sameeyo Facebook page ciwaan sida looga sameeyo ma garanaysid what ka soo okay marka waa inaad ciwaan leedahay ciwaankaas ayaa waxa ku soo dulduubtaa markaasi Facebook page waxa sameynaysaa in maaragtay aad ku dhufato 3 dhibcood kadib waxaad ka sitaysaa pages marka ka sitagto waxaad ka sitay kartaa hadda waxaan wuxuu leeyahay page-kaadii hore dib u fur
marka ka bootinaysaa create ayaa leedahay create ka kor ku dhufanaysaa kadib start ayaa taabanaysaa kadib page name magaca base Facebook page-kaada ugu bixin lahayd ayaa ku qoraysaa waxaan ku soo qorayaa kale tijaabo ayaan ku qorayaa aniga tijaabo ama yani tusaale maadaama tusaale okay next ayaa leedahay wuxuu ku leeyahay markaasi yani category yani wax kasho tan midba adiga waa iska gashanaysaa ma garanaysaa oo tan iyo iska optional way iska muhiim ma siiyaan marka next ayaa leedahay okay hadda wuxuu ku leeyahay markaasi address yani iyo choose yani meelaha joogto iyo addresskaada iyo waxaas ay ku weydiinayaan hadda jijiga iska dheh halkan waxaa iska dhahdaa sayid maxamed okay jijiga okay hadda waxaa la markaas next ayaa leedahay okay hadda wuxuu ku leeyahay tusaale page-kaada waa diyaar dhan ayaad dhahaysaa sidaas ayuu page-ku u furan yahay wax bas u si weyn ma aha marka saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad muuqaalka wax badan ka faa'iideen haddii tan ku ruuxa boqoto waxaan ka codsadaa subscribe saarto si aan u gaaro يعني صدق subscribers aad waa mahadsantahay wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh